xiriirku wuxuu maraa marxalado kala duwan si uu u gaaro heerka ugu dambeeya. waxaa lama huraan ah inuu maro stage badan kuwaasoo ay ku horgudban yihiin caqabado aan qiyaas lahayn, iyo ogolow inaan kula wadaago 6 stage ama 6 marxaladood oo xiriir kasta lamaane maro. Euphoria. marxaladani waa stage-ka ugu horeeya ee xiriirka. si kale waa xilliga bisha malabka, lamaanayaashuna ay ku jiraan waqtigooda ugu farxadda badan. waa marxalad xasuus badan, midba kan kale uusan khaladkiisa arkayn ama uu si fudud ku cafinayo. wax waliba waxay ku socdaan si la wada jecel yahay. 2. The wake up call. marxaladan waa marka arrimuhu xoogaa yar soo xumaanayaan, xaqiiqduna ay daaha ka qaadmayso. waa xilliga midba kan kale wejigiisa iyo dabcigiisa dhabta ah u arkayo. waa marxalad ay lamaanayaal badan ku kala tagaan. waa halka kala duwanaanshiyaha uu kala geynayo lamaanaha beddelkii ay isku soo dhowaan lahaayeen. lamaanaha marxaladan ka gudba waxay u badan tahay inay waqti dheer isla sii joogaan. 3. The big test. stage-kan waa marxalad u baahan shaqo badan. lamaanayaashu iyaga ayaa iska leh khiyaarka ay wax ku hagaajinayaan ama ay ku burburinayaan. si uu u horumaro xiriirka, waxaa lama huraan ah inay isu tanaasulaan, sidoo kalena mar kasta yeeshaan wada hadal waxtar leh iyo inay isla sameeyaan waxyaabo cusub. 4. Stability. hambalyo, haddii aad soo gaarteen heerkan, waxay tani micnaheedu tahay in adiga iyo lamaanahaagaba aad timaadeen marxalad aad ku wada shaqayn kartaan kala duwanaanshihiinna. uma baahnidiin inuu midba kan kale kontaroolo ama bedelo, laakiin waxaad noqonaysaan kuwa is-aqbala, wuxuuna midba kan kale ixtiraamayaa xuduudiisa. 5. Commitment. marxaladani waxaad ogaanaysaa inaadan u baahnin lamaanahaaga, laakiin beddelkeed aad doonayso inaad la jirkiisa ahaato. waa heer aan caadi ahayn oo la gaaro. haddii aad gaartayna waxaa waajib kuga ah inaad ka shukriso. 6. Deep attachment. marxaladan ugu dambeysa waa mar aad adiga iyo lamaanahaaga aad wax walba isku fahanteen, kuna heshiiseen inaad isla janno tagtaan. waxaad bilaabaysaan inaad ka wada shaqaysaan wax ka baxsan xiriirkiinna, sida inaad ganacsi isla samaysataan, dadka kale wada caawisaan, sidoo kalena aad tusaale u noqotaan dadka kale. haddaba adiga iyo lamaanahaaga marxaladee ayaad ku jirtaan? nagulada fikirkaaga qaybta kommentiga. sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraado kanaalkan, kamaleelkana aad furato si aad ula socoto mowduuca xiga. mahadsanid.